السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارته هي أصحابته كسبن أما كحرن شنك تاير أوفيشال أدبان دي سلام وين كل بادني وين كل مغرب بس هذا بس كسر نقطة نكسن تاير روح تبينيا طبعا عدي هرو راعن وحان عدي تيكسنين وحان عدي تابن كرين وحيان ترحان لهين تح تراب فيلمان روايضه أيوم بوتبينيا وإنان تاكلين تغييرو هدانو هلين تلابا مريحي كارو ايو تابو تايرو تابو برتا سعدو اي كتالو عاوي وحق البهاي فردية ميديكتان كبلابية ولا شحمد الشنقح اليوم مستر أهدم ولالك غالي أهدم بي أدبا بسلواني سنسأل الله كريم ودونا هاي ولالكي معان أبوانكي تايرو وحاوال وفرح سنة ماتي إنها تنلقى لك صوب مخضو مركز أصحابك لما وإي السلامة يا مركز تقدمك جوكتين وحالي هاي صور نقض وغناك سنة هذا اللي نقول لك حاجة horta waxaan leeyahay asxaabta taagan official ku xiran waxaan idin leeyahay waa idin salaam marka hore waxaan idin leeyahay inta ku cusub subscribe saara channelkan waxaa yeelay waxyaabo fara badan oo idin raali geliya waa idin soo gudbin doonaa insha Allah marka waa idin salaamay waanta waa idin horeeya laakiin muddo fara badan waa igu arki doontaan insha Allah bariin khadka ku kala maqnayn laakiin waxaan leeyahay asxaabtayda qaanikeed ku igu xidhnaa hore igu xidhnaa asxaabtahay kuwa cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada kuwii hore ila joogay hadaba saa i dhowriyay hawlka xaw ka baxa waxaan leeyahay waynu kala baadiyo waynu kala baadiyo waan gaar ku soo noqday imika laakiin caawa mawduuca aanu ka hadlaynaa waxaan doodaasan iyo aadan u dhalaalsan okay aadan u dhaarsanay maanta halkaas ka arki doontaa wuxuu ka qoysay waa ka xaga sareedi ku qoran doodda waxa wadaag leh xando u doodaysa maxay ku dumaan qoysaskan reerihii kala dhaqaajiyay ilaa wata la yaabay maalin walba reer bay leeyahay ilaahay hebelkayna taqaaneen kala tage oo khadka la isu marinayo oo la isbaabiinayo maxaa dhacay xagee cilad ku katay waxaan kaga hadli doonaa laba mowduuc oo mid lamaanayaashan dee ku jiray caankay magacaale ee soo gala khadka soo gala social media intay dadka isbaraan haddana kala tagoodana aan arkayno dadku ama meelahaas isku guursadaan marka dad isfuraan imika hambaliyada in baa la arki jiray soo ma arooska waxa la arkaya xamdaay isfuritaanki maalin loo hambaliyay loo sameeyay ka baqaya way soo socotaabay marka hadaba mawduucu wuxuu yahay khaladku xaquu ka jira xagga dumarka soo xagga ragga waxa ku horeynaya maxamed xagga midigta fadhida waxa la midigta laga bilaabaa alxamdaay xaqi okay walaalkii macaan aad u maadsan tahay maadaama aan fursad koowaad siisay aniga waxa dhihi lahaa qaladku wuxuu ka jiraa dhanka ragga sababtana waxay tahay yani wiilkan iyo gabadhan way heshiiyeen way jeclaatay reerkoodii uga soo tagtay nolosheedii iyo farxadeedii iyo wax walba siisay kadib naaga imaanayso Yurub ka imaanayso oo baasaboor wadato baasaboorkaas wuxuu u dayacayaa noloshii jaceylkii farxadii dhextaal markaas uu ka dhaqaajinaa dee way marka khaladkii ninkaas wuxuu khaladka waa ninka aniga always ninka oo yani lacagta iyo yani dhaqaalaha dumar ku raacayo kaas siin dee miyaa la oran karin dumarka ku dhawdo qayb ay ku leeyihiin tan baasaboorkii boorsada seetaaba lacagta ayba ila waa dumar yani ahayn iyo cilad halkaas yani cilada soo jirtaa waa sax dumar waxay jirto marka social media soo gasho adiga markasto qeer ay qasaar labadaba filo leeyana waxa waay qasaarka amashis ka filinaysa iyo qasaarada waxa laga yaabaa in qasaarada badato leeyana waxa jirto xaasid oo jecel inay familka ay burburiyaan oo nolosha gabadhana faraxsan oo gabadhan farxadeeda ka qaadana marka waxay raadsanaysaa ninkaas uma farxada hayo ninkaas farxada hayo leeyana adana fiiri magaalada ay joogtay ama Yurub ay joogtay ama Ameerika ay joogto waa qof caan ka yani damcaayo oo nolol ka raaw malaha marka ninkan oo miskiinka Afrika joogo ee waxay rabtaa inay يعني noloshiisa inta ka waasho iyo baasaboor iyo balaayo iyo lacag inay tuso iyo sidaas maxay ahaato nolol ku hesha intaasi wax ka raadinaysa waa qof daciif يا آل أنا رجعت كل هذه الدفاع في الجسد
xamdi waxay tiri wiilasha ayaa khalad kale oo dee eeganaya shandadan la jiidanayay waxaan ku jirin ba aan war loo haynin iyo baasaboorka horta wiilasha qalad ma laha maxaa yeelay dumarka ayaa qalad leh awalan naagtan haddii oo ninkan keliya looma soconin ninka waxaa loo baneeyay afarhaas fiiriya naaga lala guursanaa waxay is leedahay kaanahu yacnihi iyada keligeeda ninka inuu u banaan yahay aad moodaa yacnihi oo laazim yacnihi ifuray leedahay kelmada furitaanka lagu leeyahay waa meesha ugu dambeysay yani waa kala tagitaanka ahaa looma baahno hal kala naagaha soomaali ma raadiyaan ilaa furitaan mooye waxaa jira dhowr dariiqadooyin oo lagu galo qofka yani ninka hadduu ku qabo dhowr dariiqadooyin aa ku gali kartaan iyo maxsaan u samaysay sidee maxaa yani aniga kaa yani aadan aan kaa dhex galo na dumarku baawarka ay leeyihiin ama awoodda ay u sheegtaan ninkeeda waa waraaqdayda ay siiyey waa waraaqdayda ay siiyey haddii markaa ninku ile gabadhan uma doonayso ugu xidhan in lala lahaade haddii ay isku qanacsan yihiin oo farxadi dhexdeeda ka jirto oo yani ay isku qanacsan yihiin oo iyagu isku kalsoon yihiinba haddii gabadhu dee muxuu naag la karaadi gabadh kale ka doonaya miyaan markaa ninku khaldanayn markaa aad leedahay midaan kuu sheegaa naagtaada hadday wax walba kuu sameyn aysan muran badneen oo raaliyad ku tahay adaaba mid kala raadinayn laakiin hadday oo maalintii aad soo gashidba albaabka kugu qaalinayso oo yani rafaadki iyo adduunki iyo yaa u istaagi karaa iyagaa booska banaynaya waashigeeda cuntee cabaad ayagiyaa booska banaynaya dhibka jira haddana waxay leedahay yani waa naga yani nimankiya hun xamdi aad baad maastaad xamda wuxuu sheegay saad maqlaysay wuxuu dumarka gabadha dayacan ee ninkeeda dayacda dee wuxuu raadsanaya in habeenku bariis cuni kari maayo baastu doonanaya markaa ma la odhan karaa dee dhaliisha haddaa xaggan iska hagaajisaan inaanu kunaa kalaba doonan karin oo xag walbaa ninka risa ka dhigtaan horta waa maqlaayay aadan be wuxuu dhahaayo laakiin ani boqolkiiba boqol kuma raacsan oo kasoo horjeedaa sababta ugu soo horjeedani waa caddeynaya waxaa waaye waxaa jiraan nin boqolkiiba boqol ay gabadhiisa u wanaagsan tahay raaliyo u tahay guriga u nadiifiso cunto macaasiiso yani ubadkiisa u xanaaneyso naftiisii og tahay haddana naag kala aadayo sababta u aadayo waxay tahay yacni in uu maxay ahaato saaxiibkiis ay guursada naag kalo maybe saaxiibkiis naagtiisa inay ku xumeed asaga laakiin naagtiisa kuma xumo laakiin wuxuu ku dayday wuxuu ku dayday un ninkaas waraa aniga naag kalaa qabaa adiga maxaa halku aqliga saankida kida oo sidii ku baxaa midda labaadaa kusoo hartay yacni asagaba aana awoodin oo nafaqeynti halkii xaas ay dhibaato ku tahay anaa kala aadayo yani afar inuu ilaah u baneeyay waa la ogyahay laakiin horta waajibkii ku saarnay ma kasoo bixi kartaa caruurtaadii horaa dayacday xaaskaadii horaa nafaqeyn la adahay mid kalaa guursanay afra ilaah ii baneeyaa dhehe lee aadan kasoo jawaab horta su-aal horena kama jawaab inuu siway kuu dulmartay oo sidii guud baad uga hadashay ninkan gabadha ay isku faraxsan yihiinba kana aanay dayicinba ay isku faraxsan yihin bay xamdi ka dhawaajisay ayaa gabadh baasi boorsiyataa xaggaa iyo dibadaha ka imanaysaa xariifkiiba waa lala faqayaa jacaylkiiba wuu ilaawaya hore wuxuu leeyahy jacaylkan unbaa kii saxda ahaa taa udheeda ka waran horta waxaa jirta horta xiriirka oo qoyska wuxuu ku dhisan yahay kalsooni kalsoonina haddii oo loo baahdana yani matalan naagtan haddii oo maslaxa ku jirto markaa le macal bas maslaxadda ha qaadato basaboor baa galaye maslaxa ha u sawirto arrinta sheegay horta soo baxday naagta hadday maslaxa ku jirto waxdaa ha fahanto macnaha ha fahanto ayadana kule lama daayayo ma fahantaa waan u dhoofeynaa waan soo laabanayna waan qaadanayna laakiin maslaxa ku jirto waxaa shaygii maslaxa imaaday taas anaa mid ka dhahaayo yani middaa ka dhahaayo waxay tahay haddii aa qoftaas aa gur maslaxad aa samaysid yani waxaa waaye marar badana aad khasaaraysa sababtoo qofkaas adigan yani waxaa ku raacaysa dhaqaalo ama dhoof ama whatever waxay noqoto maslaxad waaye sooma okay qofkaas adiga hadda yani ma jecelid qalbi uma haysid nolol ma siin kartid
marka waxay noqonaya inaa qofkaas isaga aa qiyaanto marka labaadna waxay tahay gabadhi adiga yacni awlaadaada kuu heysay oo kugu faraxsaneed oo kugu qanacsaneed oo adigaba shalay adigoo lacag leh kumiisa guursan adigoo faqiir ay ku guursatay habi ku ahayd ay faqiirnimadaada ayadani waa qiyaantay niyaddaa ka jabisay markii labaadna naftaadan aa qiyaantay liannu shaksiyadaada dhan aa baabi'isay qofkaas maslaxadda ku sameeyay ani qof aa shaksiyad lahayn aa aqaana qofka maslaxad wax ku raacay adduunka horta faqrinimo leh hadii lagu jira xanuun waa jab xanuunka waxa ha jab xanuun gurigii markaa imaadid wax oo la karinayo malaha marka habad oo iska qoyana aragti ma fahantaday oo ayaa say wallahi waad ku qoynaysaa raashinkiisa ku qoynaysaa de macnaha leen qabo wallahi ma fahantaday laakiin habadii maalin kasta kusoo horfadhiso hal dir awadato adaaba nooxaa shoo qaadayde ma la oran karaa iminka aadana hablidii laqaan halkaan iga daawanaya haddii aad u sheegto inay iskaga qaboojin u yihiin rag badan inaad iyo aynu wax kala sii qasna ma laga yaaba ladhabalaa iskaa ku jiray wallahi ani waxaan leeyahay raggiina hadduu yacnihii oo mid kale uu raaca hadhixinina ifuro nimanku ku dhoof tegay miya ha wuu dhoof tegay wasaaradii xandeha loo soo dhafigeliya hay adiga ninkaagu haddii duruuftiin iska yida duruufta dhaqaalaha ilaahay baa bixiya hortaas inagoon xaggaa ku gafaynin ilaahay wuxuu ku yidhi waxaan ku siiyey imaanso sax waxaan ku siiyey imaanso oo isku falaysay waaye haddii bilaaba dhacdo adiga ninkaagu inta ilaahay baa kuguma keeno eega feef baa ka dhigada ilaa sambal baynu ka hadlaynaa mawduucina tusaale ninkaagu xaalad baa iskaga jirtaa guriga kelidiisiiba si oo يعني سلد لفتيدي بس شيرك وجدتها wax kaleba inta laga yimaado wax la xidhay wax lagu baashaalay wax la xidhay waxa bas waxba la isulay waa kitchenkii hay xabad kala kacsan ودي اللي قلنا إذا فرش شبيه وفرش هذا حاجة قلت له كوي ما تكوي يا حمد هل تحبطني ويوري لي صح أبغى كم قرن كذا قال لك كم يوري لي تي يعني واستاتي فخر قايم كم بحنا وينو يقول لي شيء ويرجع تقول هدي وإحنا لا شوكت لا بس بين شوك سال بضع أسبوع سيدي واحد نيادك شتها نيك هاجو باديكم غن هدي بيادون ودروف تقصو بندقو والله حتى إحنا قوي بتر لو سوق لو كذا ظروف أنا كم قناع سنية وذ قناع ستة أدا قناع سنية خلاص وحنا ربي إلى داخل بحيو أنا هل حبروتي أنا مانكي أو خلال أنا كنت على هاي إنهم حين تناكل الكرسي وأنا نبدو وتاسع هتيك تهاك بدال وأنا الرجاس حتى يمطرنا يمكن عشان سنين تدرس كان كلنا ورانا قلت واحد كسلام بيعيش ورانا تيم أنا باهي قبل أن كنا قبضوا يلعب كذا وهنا ولا أفضل هذا يعني كل ما هو شيء لهم Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. كورني خيانة مية وحاجرته أردا مدح عربي إلكا هكذا بدبالنا الله ما فهمت هذه وحاولت حاجة ونقطة ها ما فهمت هذه مركب وحاجرته أفتان لقى مني هالجير ما فهمت هذه وحاجرته بيبي وحاجرته الله يعني أني سفر عن هذه ربا إلا يعني قبل كلام وصفر يعني ما فهمت هذه استيش حبيبي خلخل البيت ما عالي وحنا سده بلود ما عرفتي يعني مقنعنا أو كلام ما فهمت هذه أنت سده هذا بلود معناها أنت مصاريف كيلو واي وأيضا لو سوق هذه ولي أبدا قوي لو سوق هذه على السياح ما فهمت هذه ما فهمت هذه كنت سده هذا بالمركز صور لما يستوجب قال كوسو الدكا على ضمن هذا سؤال سلمان أنت أبيه سلا يسقوتي ويا قبل ويا اللي واحد تاني كيري بأفريقيا كقتك إن تكون فيه ويجتو حبيبي هذا حرمتها حاجات شيفتها شيء كده يربى لقى ربع وقت جام مارينا يعني وكان نلاش هذا هو خيام الجوركي والخيام خيام ما سفركي والخيام هذه الحاس كأجو كو خيام وراء ميا حاس كي حدي أي زائد يجي أشهاي عن ربنا إن كلا تكنو ومش شيء كلا بس هذا بلاد حاجات مغات مركا
saddexdaas yani safaraan kuma qanahay ma fahantaa lacagtaad iyada kasoo qaadeen nig waad soo shaqaysa may lacagta aan iyada kusoo qaaday ayadaan ku biilaa tan kale aan ku biilaa hayo ila wadni shaqa ku maqan baad tahay la hawla wadaysi ma fahantaa waa maqlaysiin safar haddaa maqashiin gabdhow iska jira wara arsil maya waa sheegaya waa digniin waa hal shaga ninka loo armado cusub ku soo biilay inta xiriirtu ma sheegan ba waa khiyaamo kale telefoonkiina jadwal baaban u sameyn anigu hawl dheer buu galay wixii waa diyaarsan yihiin aadan waa diyaarsan yahay waa ujeedaa ninkaaga adigu saad gaar uga hayn lahayd oo aduu milaan lahayd aniga asra tay bilaaba taas kugu dhacday ilaahay kuma keenay aniga way caddahay ani ninkayga horta xorriyadda kama qaadi lahayn ma fahantay haddana saasay tahay waa la socon lahay meel kastuu lug dhigo waa la socdaa anoo asaga aqrac iyo qajac gelinaynin asas oo la socon lahay waxaa ku dhee suum meel kasta suum aa gelinayo wakadoo soo dhaweynayo waxa sameynayo marka horta wax kasta baa la dhahay guurka yani haddii xataa uu marka hore inuu qariyo isku dayo ama yani daacadnimo iga faa'iideysto kida banaanka imaadaba maalinkuu banaanka imaadana waa isdeena markaasina waa khalad haddaba maxaad waaye haddii gabadhaadi ku ogaato ila bad baad gashay siyaad uga dabaalan lahay xaaladda furitaanku halkaasuu imanaya ninkii baana khaldan tii xamdi sheegaysaba soo baxayso raggeeni ayaa khaldananaya waayo khiyaamisa bay khiyaamadii baa caddaatay see loo wada joogaa wada joogaa marka horta caqligan ilaahay wuxuu noo siiyey inaan oo magaalka aan ugu socono ku adeegno aan ku adeegano awalan naagtan waa sida caruurtii oo kale waa hadaa la sasabo waa walba way ku yani jawi deganaa kale waa wada hadday ogaato dalxiisan yani wadan kale u geynaa ma fahantaa waa soo dalxiisna dahba usoo gada adduun yani waxaa bijacashahay usoo sameynaa khiyaale aan war horta dee la hawl baa taalaba dalxiisku marka hawshan la iska yeele يعني كيسات قبل حد كوكن عنا ويعني يفر أهانا يقول ها يلا ماشي تبي خيامي ما وقتي فرا اسمه قبل نالبي واحد جيس كمفرد من حد تبى كل بدي هذه يعني سكلا أو يعني مسكحيا أو بتبادل لها عندي لا بي بتسوى سكسوفرا هذه كان يعني من هالعلة حمداء واتم شيء كذي وقتي أنا نني دين كرنا حمد تلك دي أي صوّد تبع ده تولك ناكا أرت بلنا دقيقة شو تيجي ما هي بتخنا خلوا كرنا قيد تولك قبل صح تولك دي وعندنا تولك دي سواء المشي أبقى دولة أنا مركاين أنت حقي دي ما كسعودة تولك بالنا أنا جاي أنت تولك ما حد ما كانوا قنعنا اللي وحنا كاي يميني ورني وهرت مرة مركي قصة هاي أيام مد الحس لقيا من الرجال لقيا بوب باتري شدت ديري سوق قالتي مركي كده وقالت خلاص كل جالي بيتي مو مصور عميتي هذا يقول عنه ناك يعني هي ناك أو يعني هي ناك للبوس هذا حد من بلاوي ما فهمت عليه ويسوي جرتي اللي جي هورن وايد جرتي مرك خفتان هدي أو يعني وحان روا إنا يعني حاسكي أحد ما جاني ننفر ما فهمت عليه لكن وحان يعني وحي أيضا دلبته ومسمينه waxay dalbato oo sameeyna furiinka waxa dalbadu kamid yahay furiinka waxa dalbad ma markii furiin laga reebo maya dalbad waa lagu sameeyna horta waxa ku sheegaa yani xaaskaada waxa furtay maalinkaana kala guursatay hadda yani had fiiri maxaa qoysaska oo had Soomaalidu maxay u kala tagooyaan had kuwa naqaano inta aqoon iska dhaaf inta naqaan maxay u kala tagooyaan maxay xal u leeyihiin waa qiyaanadan uu sameeyay meel uga baxna ma yaqaan hada naagtaas lama diidinido naagtaas boos ma yana la marba horta ma dhacday waa bas say u dhacday waa bay mar kale uu qiyaano horta adduunka wax walba way dhacaan laakiin si u dhacday lama dhaco no mar kalena waa qiyaano kartaa qofkii mar kalsoonida waa joogtaa wali yani ninkaada waa ku jooga Soomaa no ku jooga ma yani furiin le rabaa تركيا بنورة ضدي بالقادرية هاد ما ستين ساعة تقاني قاعد برنامج كاركا سينو بس عندنا إن شاء الله ولا بكل جرهلين هذا ما قرب حين رجي يسوي مثلية الحمد لله واضح برك تمام كحلقة سنتها فرين ربا فرين بيرها ولي يضو الله قوي بيفرين نودي نحرس ليه بايدك تاني ليه إن شاء الله وحواي أصحابي هذا كذب أنت أسكال سعانينا وحياة بدنا إذا يسجل اللي كان دونا إن شاء الله
marka waxaa idin leeyahay subscribe-ka, like-ta, comment-iga, share-ka adinka waayde adinka wax idinku nahay aada saaxiib miliyan laba waxaa idin leeyahay intaan dhageysatay aa qosashay kadib iska tegin subscribe ka qabo bilaash le waay wax oo yani waxaad soo gadan weyso iibin weyso maca marka ku caawi walaalkaada ma fahantaadin like share-tana yani baraha bulshada ku share galay si dad kale ay ugu qoslaan marka waxaan idin leeyahay subscribe like and share insha allah bismillahi karim waxyaabo badan idin xiise gelin doona oo ka heli doontaa insha allah idin faa'iido gelin doona intii soo bilaabayna imikana waan isku soo noqonay insha allah habeenkii waan is arki doonaa ismaqli doonaa haddii ilaah awoodale uu caafimaadna siiyo dhammaan xeerkan uga naadcelinaya martida barnaamijka xamda iyo aadan inaan waxna kula teginaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.